bishii rabadaan baa soo gashay jannada is horkeen sadaqad baa bixi lagaa leeyahay jannada is horkeen quraan baa lagu leeyahay kaale akhri jannada is horkeen aakhira wax u bixi baa lagu leeyahay jannada is horkeen markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisii isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sare kacoo nebigay ku yidhaahdeen nebi allow magaalada maka annagu aan ka imannay ka soo baxnay maa uu zamzam baan ku haysanno iin ma ahayn halkan biyuhu waa in magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagaan ku iibsanana ma haysanno markaa ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nebigu u tago wuxuu ku yidhi asxaabatayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabbaane markaasuu u fasixi maayo oo anu ceelkaa yar baan leehayo biyahaa yar baan iibiyaayo reerkayga ayaa ku biiliyaa markaa buu nebigu ku yidhi bicniihi bicaynin fi ljanna il jannada ku taalla ceelkaagaa ku beddelo ku iibso markaasuu yidhi may ceelkaygaa yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yidhi cusmaan binu cafaan radia allaahu canhu oo daki ahaa oo caqli badnaa oo inshiisu meel dheer wax ka arkaayey oo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa hadalkii nebiga qalbigiisa ku dhibcay bicniihi bicayni iljanna il jannada ku taalla ceelka igaga iibso markaa buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa cusmaan baa ninkii u tagoo yidhi ceelkaaga haddii lagaa yidhahda lacag ku iibi ma iibin lahayd haa waan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiiyeen 30,000 oo dirham cusmaan lacagtii buu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu ka yidhi uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yidhi yaa rasuulallah ceelkii bi'ru ruuma haddii aan keeno ishii jannada ku taallay ninkaa loo ballan qaadu iska diiday aniga ma lai ballan qaadayaa markaa buu nebigu yidhi haa markaa buu yidhi ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf uu yahay hadhaansadaan buu yidhi ceelka haddooda biyihiisa waa waqaf hal isticmaala buu rasuul allah markaa buu nebigu farxay indhaha ayuu nebigu markaa kor u qaado wuxuu yidhi cusmaan ilaahuw raalli baan ka noqdee raalli ka noqo cusmaan maanta laga bilaabaa camal dambe hadduuna samaynba intaa buu jannada ku galay buu rasuulku yidhi bicniihi bicayni iljanna indheergarata dadkaasa ahaa soo maha ya mise siyaasi salaadna aan tukanayn baa lagu odhan indheergarata weeyaanoo 50 sanee soo socda isbeddelka geeska afriku ka faalloodaay dhegaysta idaacad intoo la soo fadhiisay yaa allah caqliga aakhirada ku tusini waayo caqli maaha nolosha dambe caqliga kuu jeedin waayo caqli maaha araggu haddaad aakhirada ku arki weydo ood ku xisaabtami weydo arag saxa maaha janno hadday maqlaan asxaabta rasuulku waxay hayaan halkaaba iska dhigayeen marka jannadaasaan is hordhigaynaa markaan soomayno salaadayno sadaqadda bixinayno zakada bixinayno waalidka u samafalayno janno nin baa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa oo inaad jihaad baxdaad u timid haa jannaad doonaysaa haa jannaan doonayaa nebi allah wax kale ma doonayo labadaadii waalid ma nool yihiin may hooyaan nool ma iyadoo kaa raalliyaa timiday mise iyadoo safarkaaga aan raalli ka ahayn maya iyadoo ooyaysaan ka imiday markaa buu nebigu uhi sow janno uma socotid haa hooyadaa ku noqo lugteeda qabso halkaa baad jannada ka geli doontaa adigu ilzim rijlayha uma aljanna buu nebigu uma aljanna lugteeda qabso jannada halkaa baad ka geli daacadda ilaahay markaad gudanayso waxaad is hordhigaysaa waa janno macsi markay naftiiyo shayddaanku kuugu yeedhaan ee shayddaanka iyo naftu ay ku yidhahdaan ilaahay caas oo dembiga samee oo waxaa ku dhac markay naftiiyo shayddaanku ku yidhaahdiin waa inaad is hordhigtaa ilaahay cadhadiisa is hordhig inna badsha rabbika la shadiid inna rabbaka labil mirsad ilaahay ku xisaabtin cadhadiisa ka cabsiyi naftaada markaas marka labadaasaa la doonaya ilaahay inaan ku caabudno tamacan khawfan wa tamacaa cabsi iyo rajo cabsida goormaa la rabaa waa intaad caafimaadka haysid eed nolosha haysid ee dhallinyarada aad tahay eed amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaaddo ilaahay raxmaddiisa raje markaas oo ha quusan
وواحد هذا نفط هذا واحد كتر هذا ربي جاي وانا حريص بدنه ودقس بدنه وكريم وياه إلهي وكريم قال الله شقين يسوى كريم سيدي نكي حجك أسعدي مرأة اللي مركو إحرامك أحدي أيوم مغلي يقول لبيك اللهم لبيك مركا دوشي سال لقلي لا لبيك ولا سعديك حجك آذو سعوت الله ما أقبل سفرك آذو حمان قادتين إلهي كا أقبل ما يسكجوك هذا الباطو شكل الدواء مدي سقد قداشي سجوغا هذا الكيلا مقشيي كيبا كوير يا شيخ حاضك حجنا ديبو لبيك اللهم لبيك مركا ترى هذا الجواب تبعت مغلي مركا ما مقشي ها وان مغلي ما هذا المقشي هذا المغلي وعد تضبي الله بعد السنه ايان الهي غريغي سو قصدي مر لي مركا حجك انس احرامك سو خدو اي تلبيه سو بلابا لا لبيك ولا سعديك بالليليهي ووحا دشيدا لغا ليهي حجكاغا عمرadaada sacigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay ka aqbali maayo baa leeyahay iska joog baa leeyahay haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaqiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xagee kale oo taga balisheeg guri adag tala ka qaadana balisheeg bukay ma jirtaa meel kale wuxuu ama hal lay aqbalo ama yaan lay aqbalin أنا إلهي ما نصعد حقي سبوي مالك الأمة الصعود كقوسا ما إلهي الرحمة ديس الكريم الرحيم الرحمن وحليم وستار عبت إنه رب قرنا يا مات دول قاد بدنه وارمع عدالة إلهي ما كنت جوج الدنيا ده بالي دول ستر هي دول قاد إلهي ما كنت جوجنا ستر أستر كيس إلهي بنا أستريا إلهي بين نض القادنية لكن هذه عدالة اللي يجي لها أعماش الجركنا ما تكسف ليس هي عصيان كان إلهي عاصنا إنه هي سدا معاصده والضوين كنا مقاحيه هنا قريه هنا إلهي اللوجو عاصنا يو دقيقة أدون كنا كنا ولا نحق ما يلنا المانت تضبي الله ما تسنا المغلا يا أبو يري ولا يقول جواب يا ولا إلهي هي إلهي حشاك كأقبل ما يسكجو دما جوغا كجوغي ما يوان سعدا غدوريا ويميدي دواafkii bilaabay saayigi markuu dhameeyay ayaa dushiisa laga dhawaaqo leeyri labbayka wa sa'dayk waan ku aqbalay waan ka ajiibnay 720 hore xajidayna ilaahay waa ka aqbalay baa lagu yiri kiiba la maqashiye marka hore maqlaayay marka buu sheekh waa lagu aqbalay wuxuu albaabkiisa ma hayna albaabka loo garaacayna ma jirta buu ka yiri ما قوسنا أنك إلهي بنا يسلم